Dhulgariir cabirkiisu gaarayo 5.8 ayaa ku dhuftay dalka Itoobiya sida ay sheegtay xarunta cilmi baarista ee Jarmalka. Ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ku saabsan khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay dhulgariirkaasi, balse dildilaaca ayaa ka muuqday wadooyinka. Hay'adda isgaarsiinta dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ilaa iyo 80,000 oo qof ay ku nool yihiin meelaha ay dhibaatada ka dhacday, waxaana dadka ugu nugul iyo kuwa danyarta ah laga soo raray guryo ku meel gaar ah. Guddiga Maareynta Khatarta iyo Musiibooyinka ee Itoobiya ayaa sheegay in ay daadgureeyeen in ka badan 20,000 oo qof deegaanada nabdoon ee Cafarta iyo Oromiya. Marka la isu geeyo, in ka badan 51,000 oo qof ayaa weli khatar ku jira. Waxaa socda qorshayaal lagu rarayo in ka badan 80,000 oo qof oo ku nool Oromiya maalmaha soo socda, ayay hay'adda ku tiri hadal ay siisay warbaahinta. Dhulgariirku wuxuu uu waxyeelo guryo qadiimi ah gaarsiiyay iyo buuro waaweyn oo halkaasi ku yaala. Deegaanadaasi ay runtii aad u gilgileen, waxaana daba socda foolkaanooyin aad u waaweyn. Inkastoo foolkaanadu ay joojisay qiiqii soo baxayay, haddana dadkii ka agdhowaa waxa ay ka tageen guryahoodii ayagoo argagaxsan. Jimcihii ayay warbaahinta Itoobiya sheegtay inay jiraan astaamo muujinaya in foolkaanooyinkan ka qarxaan gobolka Cafarta, iyadoo muuqaal laga soo duubay uu muujinayay qiiq iyo boor ka soo baxayay godka buurta Doofaan, kaasoo ku yaala mid ka mid ah deegaanadii dhowaan uu saameeyay dhulgariir ka dhacay Itoobiya. Muuqaal uu Machadka Cilmi Baarista Dhulka ee Itoobiya Geographical Institute oo soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxaa la arkayay qiiq aad u badan oo ka soo baxayay buurahaasi. Cabdu Cali oo ah madaxa maamulka Cafarta ayaa sheegay shabakadda wararka ee Itoobiya FBC in hawsha daadgureyntu ay socoto si looga hortago in dhibaato ay gaarto shacabka. Wakaaladda wararka ee Reuters ee soo xiganaysa Shifrow Teglemaram oo ka tirsan Guddiga Maareynta Khatarta Musiibooyinka ee Itoobiya ayaa sheegtay in dhulgariirku uu noqday mid aad u sareeya oo xoog badan. Dadka deegaanka ayaa sidoo kale gariir ka dareemaya magaalada Addis Ababa. Teglemaram waxa uu intaasi ku daray inay goor hore tahay in hawsha loo kala saaro mid foolkaano ah, balse ay maamulku qaadayaan taxadaro lagama maarmaan ahi. Dalka Itoobiya ayaa 24 saac gudahood waxaa ku dhuftay 10 dhulgariir, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dhulgariirku soo noqdo. Sida laga soo xigtay sahanka juqraafiga ee Mareykanka, dhulgariirka xooggan oo u dhexeeya 4 ilaa 5.1 cabirka Richter ayaa ka dhacay agagaarka Volcano Fallet ee gobolka Aush ee Rift Valley. Adam Behab oo ah maamulka degmada Aush ee Fintale oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in dhulgariirku uu ku qasbay kumanaan qof in ay ka barakacaan guryahoodii, iyadoo qoysaskaas ay hadda u baahan yihiin hoy, cunto iyo agabyo kale oo aas-aasi ah. Khubaradu waxa ay u sababeynayaan dhulgariirkan iyo foolkaanada in ay sabab u tahay ballaarinta
taarikada Technicos oo hoos timaada webiga weyn ee Rift Valley ee bariga Afrika oo ah aag caan ku ah degenaansho la'aanta juqraafiyeed. The Great Rift Valley, Great African Rift Valley ama African Rift dhammaantood waxaa magacyo loo bixiyay cilad weyn oo juqraafi ah oo ku jirta galbeedka Aasiya iyo bariga Afrika kana soo jeeda koonfurta Turkiga ee waqooyiga sii mara Levant, Badda Cas iyo gacanka Cadmeed ilaa Kenya oo dhan koonfurta. Dalka Kenya khilaafku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo gaadhaya dalka Zimbabwe ee koonfurta Afrika. Cilada ayaa dhererkeedu ka badan yahay 6,000 oo kiiloomitir, biliciisuna wuxuu u dhexeeyaa 7 ilaa 20 kiiloomitir. Great Africa waa mid ka mid ah dhacdooyinka dabiiciga ah ee ugu caansan maadaama ay tahay sababta juqraafi ee saameynta calaamado dabiici ah oo caan ah oo ay ku jiraan dooxaha Beeke ee Lubnaan.